أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا لهي مال بقى دعوانيسان سود وعد دمانتين إن شاء الله و وبراروجين ير إن شاء الله أعرف إن شاء الله إن سيداد أوكتهين دمانتين أو كل جينو دنبا قفل بدن إمراد أيولي قفل بقول أيولي قفل ماشي جو وحج عليها إنه كرب سيقعه marka sideen ku gaari karnaa marka waxa dad qof isku socod wax ma soconaay laakiin qofku waxa loo baahan yahay inuu warqad iyo qalin qaato inuu goal subsado talow maxaa yiraahdaa maxaan jeclahay inaan qabsado maxaan jeclahay in aan noqdo maxaa yiraahdaa maybe hadii ilaahay caafimaad igu gaarsiiyo sanadka soo socdo oo aan noolahay talow maxaan rabaa inaan gaaro hadii sanadku sii xig aan gaaro talow aan noolahay talow maxaan qabsan karaa maxaan dad siin karaa maxaan dad caawin karaa maxaan naftayda aan u suubin karaa oo berita ay u baahan tahay marka waxa weeyaan inta aad nooshahay mar walba gool waad suubinaysaa inta aad nooshahay higsi baad leedahay waxaad rabtaa inaad wax gaartid aad leedahay marka qofku waxa fiican inuu fariisto hadda ka soo qaad alxamdulillah ramadaanta hadda waan dhaaftay ramadaanteedii hore kale markaad joogtay aad fiirsan ramadaanka rigteedii kale talow maxaan qabsaday aniga sanadkan oo dhan isoo dhaafay talow maxaan suubsaday marka dadka badana waxay suubiyaan sanadka markuu cusub yahay ayay qalin buug qaataan ayay qoraan wixii ay suubin lahayn hadii ilaahay gaarsiiyo mar dadka qaarkood waxay ku leeyahay waay saas maxaa u leeyahay laakiin waa wax fiican hadaa dhimatid khalaas waaba dhimatid tasamaara laakiin hadaa noosha waxaad u baahan tahay inaad wax higsato waxaad u baahan tahay in wax aad gaaraysid sababta dadka waxa lagu leeyahay oo moor wax ay qabtaan oo hammi leh way ka farax badan yihiin dadka kale dadka iska socda sida xayawaankii intay raashin iska cunaan iska dhaqaaqaan maskaxdooda aan fikirayn maarta dan waxaa ka hami badan oo noloshooda ka farax badan qofka inuu dan leeyahay inuu meel hiigsanayo inuu ayaa ka farax badan sababta markaad hiigsanaysid meel aad dan leedahay waad dadaalaysaa waad ku dayaysaa wixii aad qabsan lahayd kama seexanaysid waa saas oo kale marka intana noo akhriyo waxaa dhihi the key to success is to focus on the goal not obstacles. The key to success is to focus on the goal, not obstacles. So waxa laga wadaa the key to success. Furaha success waxa laga yaabaa success waxa weeyaan macnaha guusha furaha guusheeda is waxa weeyaan to focus on the goal. In aad focused aan indhaha aad ka qaadin goalkii aad leedahay danti aad tiri dantaas ayaan qabsanaya inaad indhaha ka qaadin oo mar walba aad hiigsanaysid aad wixii ku taaganta wixii aad suubinay tawa not obstacles obstacle waxa la wax markaas ka soo dhaxgalaya oo ka mashquulinaya oo maxaa iraada ku soo istaagay that's called obstacle waxa lagu leeyahay ha ku fikirin obstacle fahamino obstacle wuxuu meesha u taagay inuu wixii ka mashquuliyo wixii sama obstacle haba ku fikirin sababta the more aad ku fikirto aad energy aad kaas ku lumisid kii kala waqti ka dhamaanay marka waxa yeelaysaa maxay raadaan goolkaaga waa maxay aniga kaas inaan suubiyo goolkayga soo indhaha ka qaadin indhaha waliba dadka badana waxay dhahan goolka oo bil la wado ama maxay raadaan 3 months 3 bilood la wado waxa weeyaan maskaxdu ku dhaga qalbigu ku dhaga wixii waa qabanaysaa marka dadku waxay dhahan saas ayeen waxa wixii aad go'aan ku gaartay isku day inaa wad ilaa iyo 3 bilood oo kale 9 bari inaa wax wadid wixii marka 9 bari your body your brain madaxaaga qalbiga wixii dhan wuxuu baranayaa adjust your body isku suubinaya wixii la qabsanaya marka wixii sahal bay ku noqon laakiin maalmaha hore waxa dhan nafta dhib ma rabto nafta waxay rabtaa meeshay joogto inay ka gudubto ma jecla laakiin nafta waa in la qasbaa waa in maskaxdii direction lagu suubiya oo la toosiya hadii kale waxa waaye maskaxdu waxay rabtaa sababta in maskaxda wax cusub suubis energy badan bay qasaarinaysaa maskaxda naftuna saas ma rabto waxay rabtaa in meesheeda kugu celiso waxaan dhib waaye ha suubin iska seex caawa ha ka kicin caawa maxaa iraahdaa sanayeen bariya suubinaysaa bariya jiim aadaysaa bariya kan yeelaysa dhib ma laha bakeriga gaxooda iska cab dhib ma laha waxaan macaan iska cab nafta saas ay rabtaa laakiin nafta waxa la no maya waxa wixii cunoo dhan nafta waxa rabo qofkii inuu ka celiyo nafta hadaad ka celiso nafta waxay baranaysaa inay edab yeelatay baranaysaa discipline nafta baranaysa laakiin wixii cun nafta markay ku hoorsid iska raacid birta meel xun oo dhamaanaysaa marka waxa weeye walaalayaal ereygaanayt waa aad u fiican oo ah danta iyo goolka leedahay ha noqdo inaad maanta bishaan 10 vocabulary baratid
bishaan inaad gym aadid bishaan inaad shaqo raadsatid bishaan maxaa idhaahdaa inaad lacag safe garaysatid ma garatay soo dadka taajiriinta waxay ugu fiican markii lacag soo gasho kow ayaga lacagtaasi xoogaa ay meel ka dhigtaan xoogaa ay meel ka dhigtaan lama taabo waa dhaqaalays laakiin dadka faqriga maxay subiyaan been lacagta soo gato dharka ugu qurxan u raadsanaya waxa ugu qurxan u dadka u faanina laakiin dadka taajiriinta ba u fiirso dadka faqriga maxaa idhaahdaa dukaamada raashin gadanayaan dadka taajiriintana gurigooda markay ka baxay raashinkooda bacdooda wataan maxaa boorsadooda wataan dadka CEO boorsooyinkooda yar ay wataan raashinkooda ugu jira ayay qaadanayaan marka waxa dadka faqriga aad baa looga aqli badan yahay marka walaalayaal aanu noqono dadkaas oo kale indhaheena aan furno aan wax ka barno teeda kale waxaa la yiri maanta 9 qof aad la socotid qofkii 10aad ku noqonaysa maxaa laga wadaa 9 qof oo dad xuna ama saqajaana ama faqri ah ama si marka adigu aad la socotid waxaa noqonaysa kii 10aad noqonaysa laakiin haddaad la socotid 9 people oo dad fiicana oo dad wax baranaya oo dad gool leh dad raba inay macnaha nolol fiican gaaraan adin kii 10aad noqonaysa marka waxa waa muhiim waay dadki aad la socotid dadki aad ku dhex jirtid weligaa iska fiiri dadkaas dad kor ku qaadaya miya mise dad hoos ku dhigay hadday dadkaasi dad hoos ku dhigay isaga tag ka dheero dad oo maanta la negative haddaad dad sabta waxa jira dad waxa jira marka goal iyo atira maanta waxa ka qabsanaya ka soo hor istaagaya jir oo always inay dadka hoos u dhigaan maahan aan nolol kale lahayn jir dadkaas oo kale indhaha laga fiiriya waa laga dhaqaaqa marka walaalayaal the key to success is to focus on the goal not obstacle wa furaha maxaa success oo macnaha oo aad ku gaaraysid nolosha wanaagsan waa inaad goolkaada indhaha aad ka qaadin waxa ka hor imaanaya ka celinaya ma aha lule goolka indhaha waa inaad ku haysaa marka walaalaha khayr baa in rajaynaa insha Allah aanu dadaan qof walbana wixii uu rabo gaaraya laakiin qalbigaada naftaada u sheeg in aad gaaraysid dadaalkiisana la imo waa inta insha Allah khayr baa in rajaynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته